qaybtii hore waxay inoo joogtay sidoo kale waxaan ka hadlay webiyada Soomaaliya. Labada webi ee Soomaaliya waxay leeyihiin dheef aad u tiro badan sida waraabka xoolaha, dadka iyo beeraha. Sidoo kale waxay leeyihiin dheef tiro badan. Sidoo kale waxaan ka hadlay geedaha Soomaaliya. Waxaan yiri geedaha Soomaaliya lama beero si kuwa Sweden iska badaaye goor walba waa la jaraa oo mar dhuxul laga shito, mar beer lagu falo, mar kale si kale loo gooyo. Si xad dhaaf ah ayaa loo jaraa, waxaana ku socota xaalufin oo aan loo aabayeelinin, haddana kama baaba'aan eebe ayaa ugu gargaaray Soomaaliya. Deegaha waa la shitaa oo noolaha kale oo xooluhu ugu horeeyaan ayaa ku dheefsada. Isla markaana Soomaalidu geedaha si dadban iyo si toos ahba waxay ugu mid yihiin kheyraadka dabiiciga ah. Waatan qaybta labaad oo halkeedii nooga sii socoto. Marka aan halkaa marinayay, macallimadu waa ay taagneed oo waa ay fadhiisatay. Isla markaana waxay tiri, mar kale ma ku soo celin kartaa? Kadib waxaan idhi haa, sidii oo kale ayaa u dulmaray. Kolkii aan dhameeyay ayay i weydiisay, inta kale ha ii dambeysay ee beeraha aad sheegtay ee baaxadda intaas la eg leh, ee haddana laba webi oo waaweyn ay maraan, imise jeer ayay baxaan sanadkii? Waxaan ugu jawaabay sida caadiga ahba waxay baxaan laba xilli, labadaas xilli oo kala ah gu iyo deer. Waxay tiri labadaas xilli maxaa ka baxa? Waxaan ugu warceliyay inta nooc ee raashin ee aadamuhu cuno. Waxay haddana i weydiisay qudaarta iyo miraha ma ka baxaan. Waxaan ugu warceliyay haa, ologga iyo idaanka maanta lagu cuno waddankan Sweden 98% Soomaaliya ayay ka baxaan ayaa ku afeeftay. Waxaa kaloo i weydiisay hilibka xoolaad, mid badeed iyo mid webiba ma leedihiin. Kadib waxaan ugu jawaabay haa, weliba iyagoo aan qaboojiye soo gelin oo aan bacrimis ahayn. Waxay mar kale i weydiisay ma taqaanaa dheefta sida joogtada uga baxda waddanka Sweden. Waxay ugu jawaabay maya. Waxay tiri dalaga sida tooska uga baxa Sweden waa laba nooc, labadaasoo kala ah qamadiga ama maseer, baradho ama bataati. Iyadoo hadalkeeda sii wadata ayay tiri dalag kale waa ay ka baxaan waddanka balse labadaas ayaa joogto ah. Waxay i weydiisay ma taqaanaa meeqa jeer ayay baxaan sanadkii. Waxaan ugu jawaabay maya. Waxay tiri sanadkii waxay baxaan 4 mar, taasoo la micno ah in ay 3 bilba ay hal mar soo go'aan. Horena waxaan kugu sheegay in aan leenahay hal magaalo oo birta laga qodo iyo geedo waddanka oo idil inay ka baxaan, dhaqaalaha waddankuna oo labadaas shay ay ku tiirsan yihiin. In cabaara ayay aamusneed, kolkii ay soo baraarugtay ayay tiri maxaad naga soo doontay? Waxaan idhi oo maxaad ula jeedaa? Waxay tiri adigoo waddanka uu intaasoo kheyraad dabiici ah leeyahay, ayna u sii dheer tahay cimilo heer dhexaad ah oo aan haba yaraatee baraf ahayn, sidoo kalena aan qabow ahayn marka laga reebo bilaha qaar, weliba xilliga deerta ah. Balse heerkulka waddanka uu si guud yahay mid raaxa leh, haddana sheegayana in islaam tahay oo aad Ilaahay subxaanahu wa tacaala aaminsan tihiin, amay dheeri kugu tahay in aad anaga noo soo tuugsato. Sababtaas ayaan ku yidhi maxaad naga soo doontay. Maalintaas doodii iyo waaya warankiiba wuxuu ku soo ilaaday aniga iyo iiba. Ardayda intooda kaleba waxay ahaayeen daawadayaal. Ilaa iyo hadda kolka aan kaftanno ama aan si arrin noogu imaado, waxay tidhaahdaa dheeraad ayaa ku tahay Sweden. Usha aniga ayay igu dhacdaa, balse Soomaalida oo idil ayay xaadafaysaa. Habkeedu waa kaftan, dulucdiisa waa dhab. Weli ma aan helin warcelinta aan ugu qiimeyn karo joogitaankeyga. Tanoo kale hore ma kugu dhacday? Haddii ay warcelintaadu haa tahayna maxaad isku furatay? Haddii ay jirto qof looga adkaaday dood, waa aniga uun. Dhulka eebba nagu simay, qorax maaha saan kulul, baraf samada ka da'o, suluf maaha cimiladu, waa mid udug u saaxiiba. Waa sahay Ilaahay, keligeena siiyee, ha suluugin weligaa, midnimo u sabab noqo, dhacdo dhab ah.